السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هو مركلي برنامجكي كسبو oo aan alaaba diirada ku saarno buugga la yiraahdo saaxiibo kasbo kaasi oo markaasi ka hadla fanka la dhaqanka dadka. buuggan ayaa waxaa qoray Dale Carnegie waxaana turjumay qareen Cabdiraxmaan Xuseen oo loo yaqaano Abu Hamza. haddaba ku soo dhawaada qaybta shanaad ee barnaamijka kasbo. waxaa la ogaaday in sirta liibaanta ee Rockville ahayd ammaanta iyo geesigelinta dadka. waxaa dhacday in mar uun gabood falay nin ay shuraako ahaayeen la oran jiray Edward Bedford iib weyn oo ay ku khasaartay shirkadii $1,000,000. wuxuu karayay Rockville inuu canaan kulul u jeediyo shariikiisa, laakiin wuxuu ogaa in Bedford ku kacay wixii awoodiisa ahaa. halkaas waxa uga muuqday Rockville waxa uu ku amaani karo, markaasuu aad ugu amaanay inuu karay inuu lacagtii gashay alaabtii badbaadiyo 60%. waxaa jiray hobol weyn oo caan ahaa oo la oran jiray Sackfield. wuxuu ahaa nin karti la yaab leh lahaa siduu ugu abuuri jiray gabdhaha Ameerikaanka ah isku kalsoonaanta. badanaa intuu dhulka ka qaaday gabadh miskiina oo aan cidina fiirinaynin uu ka soo saaray fanaanad quruxdeeda dadka ku sixraysa. ninkaasi wuxuu yaqiinay qiimaha isku kalsoonaanta. haweenkana wuxuu ka dhaadhacsiin jiray in mar allaale iyo markay isku kalsoonaadaan quruxdoodu soo baxayso. qoraaga ayaa waxa uu yiri, waabaan isku dayay inaan cuntada ka soomo. markaan soomay 6 beri oo isku xiga kalama kulmin soonkii wax dhibaato ah. weliba maalintii 6aad ayaan ka baahi yaraa maalintii 2aad. inkastoo arinku sidaa yahay, dad badan qalbigoodu uma adkaysan karaan inay ka joojiyaan cuntada dadka ay qoodiyaan muddo 6 beri ah. laakiin qalbigoodu u damqan maayo inay u diidaan dadkooda, maalqabeenadooda iyo madaxdooda tixgelinta ay u baahan yihiin siday cuntada ay ugu baahan yihiin oo kale. innagu waxaynu ugu dadaalnaa jirka caruurteena iyo ehelkeena cuntada, laakiin waxba ugama tarno haraadka ay u qabaan inay noqdaan dad muuqda oo la tixgeliyo. waxaan ugu roonaa cuntada iyo cabida kala duwan, markaasaan ka hagranaa ereyo tixgelina iyo geesigelina, kuwaasoo lagu kaydiyo maskaxdooda oo ku milmi doonta laabtooda sida muusiga macaan oo heeska shimbiraha kala ah. waxaan filayaa in dhageystayaasha qaarkood markay maqlaan waxyaabahan aan ka sheekaynayno is yiraahdaan waxani waa istustus, munaafaqnimo, isku dhedhejin aan qiimo lahayn. waxay la mid yihiin lacag been abuur lagu sameeyay. dadka waxgaradka ahina u dhigdhigi maayaan, kuwaasina jid bay u leeyihiin inay sidaa u maleeyaan. maxaa yeelay istustuska, nifaaqa iyo isku dhedhejinta kuma habboona dadka waxgaradka ah. arrintaasi waa nafjeclaysi ama anaaniyad foolxun oo aan geed loogu soo gabanayn. inkastoo ay jiraan dad aad ugu ooman tixgelinta, kuwaasoo ogolaanaya wax allaale wixii loo jeediyo ayagoon hubsanin ama aan kala soocin run iyo been. waxay la mid yihiin kuwaasi nin ku socoteeyay lama degaan oomana kama faanayo hadduu helo biyo calow ah ama ajo ah. waxaa tusaale u ah 2 walaalo ahaa oo la oran jiray Midvani, kuwaasi oo ku guuleystay suuqa guurka xitaa inay ka guursadaan 2 gabdhood oo ka mid ahaa xurulacayntii raadiyaha la iska arko iyo milyuneeradii quruxda loo ogaa oo la oran jiray Barbara Houghton. ma ogtahay waxay sidaasi ku dhacday? waxay ii sheegtay xidigii Bolaneja maalin maalmaha ka mid ah walaalaha Midvani
waxay ahaayeen kuwa dadka ugu badiya aqoonta isku dhedhejinta, laakiinse fankaasi wuxuu noqday wax la iloobay casrigani maadiga ah. xitaa waxaa dhacday in boqoradii Ingiriiska Victoria ku dagantay una hoggaansantay isku dhedhejinta, sidoo cadeeyay Dozrell inuu wax badan kula mucaamilooday boqorada, laakiin Dorcel wuxuu ahaa ninka ugu xeelada badan ee Ingiriiska xukumay. haddii Istustus isaga wax u taray, lama hubo inuu adiga iyo aniga waxna tarayo. waxaa laga yaabaa hubka Istustusku inuu kugu soo noqdo oo waxaad doonaysay wax kullida ah ku soo gaarsiiyo. marka waa in la ogaado farqiga u dhaxeeya isku dhedhejinta iyo tixgelinta. kan hore waa khiyaano, kan labaadna waa nadiif saafi ah. kan hore waa nafjeclaysi ama anaaniyo keli ah, kan labaadna waa ka fog yahay anaaniyadda. kan hore dadkoo dhan baa neceb, kan labaadna dadkoo dhan baa jecel. waxaan ku arkay magaalada Mexico qasriga Chapultepec, taalo loo sameeyay General Ober, waxaana lagu dhigay taaladaasi hadalkan oo laga soo xulay falsafadii Ober John: ha ka baqin cadowga ku soo weeraraya, laakiin iska jir saaxiibada isku kaa dhedhejinaya. maya, anigu kugula talin maayo isku dhedhejinta iyo nifaaqa. waxaan kuugu yeerayaa hab cusub oo dadka loola dhaqmo. boqor George wuxuu ku haysan jiray xafiiskiisa warqad ay ku qoran tahay 6 xikmadood. mid ka mid ah waxay lahayd sida tan: ha i barin wax bixinta badan iyo isku soo dhaweynta ammaan beena. maalin baan akhriyay buu yiri qoraagu laqbaha ereyga isku dhedhejinta, waxaana lagu macneeyay sida tan: isku dhedhejintu waa maad ku sheegtid qof kale wuxuu isu malaynayo naftiisa. laakiin tixgelinta aan u jeedaa waa midda uu sheegay Ralph Waldo Emerson oo yiri: qof walba oo aan la kulmo ugu yaraan meel buu igaga fiican yahay, sidaasaan wax uga baranayaa. ugu dambeyn, marka bal aan isku dayno inaan tirino sifooyinka fiican ee laga heli karo qof kasta oo aan la kulanno. iska ilow isku dhedhejinta, bixi tixgelin daacada oo saafi ah. ahow nin ku gacmo furan ammaanta, ku deeqsi ah tixgelinta. dadku waxay kaydin doonaan hadalladaada sanooyin badan kadib markii aad adigu hilmaantid. haddana waxaan gelaynaa qodobkan oo ah: qofkii sidaa fala, dunida ayaa la safanaysaa. kii aan falin keligii buu socon doonaa jid dheer. wuxuu yidhi: waxaan caado ka dhigtay xagaa kasta inaan ka kalluumaysto meesha la yidhaahdo Min. waxaan jeclaa anigu ismaris lagu daray labeen. waxaanse ogaa in kalluunku jecel yahay dirxiga yaryar. sidaa darteed, markaan u ambabaxayo kalluumaysiga, kuma fikirayn wixii aan jeclaa, waxaanse ku fikirayay wixii kalluunku jeclaa. birta kalluunka lagu dabo ama jilaabtu uma surayn ismaris, laakiin waxaan u surayay dirxi yar oo aan hordhigayay kalluunka anigoo leh iga hoo dirxigan yar. marka maxaan fikraddaasi oo kale ugu ugaarsan weynay dadka? intaasi waxaa nooga dhan qaybtii 5aad ee barnaamijka Kasbo oo aan alaaba diradda ku saarno buugga loo yaqaano Saaxiiba Kasbo. tan iyo barnaamijka xiga waa Maxamed Cali Juxa oo idinku dhaafaya. salaamullaahi calaykum.